سيدي أنا الفقير سيدي أنا الفقير ابنتك يا بشير سيدي طه محمد سيدي أنا الفقير الله سيدي أنا الفقير الله ابنتك يا بشير سيدي طه محمد الله قلتني من عاشقك مفلحين مادحك حتى مصافحك سيدي طه محمد munaasabaduhu kala qiimo iyo qaayo badan munaasabadan waa ay ka duwan tahay munaasabadaha kale ee ka dhaca dunida waa munaasabad barakadeeda iyo qiimaheeda wadata munaasabadan qiimaheeda waxaa ugu filan in lagu weyneynayo xabiibka ilaahay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa allaha yeele boqolaal caashiqiin ah oo ah haweenta jamaacada reer Sheekh Nuur Cumar Absuge ayaa isugu soo baxay halkan oo ah hoolka hotelka Ajmal degmada Kaaraan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dadweynahan oo isugu jira rag iyo dumar waxa wajiyada laga dheehan karay siday ugu faraxsan yihiin weyneynta xabiibka ilaahay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa allaha yeele waxa ay wateen shicaar ay ku muujinayeen jacaylka Mustafaha nabadgelyo naxariis korkiisa allaha yeele intii ay socotay munaasabada waxa lagu nuurinayay oo lagu dhaqaajinayay quluubta jacayl nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa allaha yeele qasiidooyin nabi amaana هلا نشأت ذكرك كل حين يا سندي لكن ربيعك جل حب فيك لفي نشأت ذكرك كل حين يا سندي الحبيب الذي بالمجد زيننا من رحمة الله جئت الناس في اللطف أهلا بشار به أرواح قد فرحت وستبشر بالضياء للمصطفى كان في الله صلى عليك إله العرش في أبد ما غرد ديرنا باللعن كالسلف أهلا بشار به أرواح قد فرحت وستبشر بالياه للمصطفى كان الله جد لنا ربي شفاعته يوم رد حبه فرضنا على جمعنا والمفرد يا ربي على خير خلقنا الله حبه فرضنا على جمعنا والمفرد الله خير خلق الله إذا أولا وأبدا تكبر رحمن جاء الله في الابتداء صل يا حبيبي على خير خلقنا حمدا
في أم القرى وهي كان المولد رماه النبي فوق الله ساعدا صل يا حبيب على خير خلقنا حمدا عليه هداتنا والصحاب سدادا الله زلح غجبه بلا كيف حسر حددا صلى دمع ميا جوز عليه يا أحمد خير خلق الله أحمد زين رسل الله أسعد نور عرش الله أحمد سيدي طه محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سيدي طه محمد الله داويني من كل داء بمديحك دوائي يا دليل الاهتداء سيدي طه محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سيدي طه محمد خيركم نور القلوب وطهارة الذنوب وهو كاشف الكروب سيدي طه محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سيدي طه محمد culimadii ka soo qayb gashay munaasabadu waxa ay ka sheekeynayeen muhiimadda ay leedahay dhigista ixtifaalaadkan lagu weyneynayo xabiibka ilaahay iyo muhiimadda ay leedahay in la jeclaado nabigeena maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa Allah yeele rasuulka wicitaankiisa yeeridiisa markaad u yeeraysiin bacdigiinoo bacdi u yeerayo kala ha ka yeelina ya rasuul allah ya xabiib allah ya nabiy allah haddii kartiin alig maana ya muxamadu ya axmedu maya waa laga diida taas heerkou ilaahay agtiisa ka joogayna tusinaysaa nabigii saas ahay marka haddiina la yidhaaho maanta lagama sheekay karo ama looma ixtifaali karo male dhibaato maaha dhibaato weyn waayo ilaahay nagama siiyo warkaas ilaahayna nagama keeno in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagama sheekay kara inaan lasoo roogsan maha wax laga yaqyaqsoodo waaye wax laga xumaadana waaye khayru khalqillaahi waxaa la yidhi sheekadiisaa lagu macaansadaa ka sheekaynta laga sheekayhayo waaba lagu macaansadaaba ashyaadu waxay ku sharafoobayaan waxa ay ku tacalluqaan bishaana waxay ku sharafowday dhalida nabiga lagu dhalay sallallahu alayhi wasallam waana weynayhaynaa bishoo dhan aan nabiga la ziyaartaaba bishoo dhan salaada la aadana ashhadu anna muhammadar rasuul wa qiimayn wala dukada kadalika maalin ilaahi keeno
laakiin tan maxay tahay howlihii la soo waday in boorka laga jafo in kor loo qaado fardi ee dadku inay isku imaad lagu muujiyo intaasaa loogu talagalay bishu insha Allah ta'ala waa bilow muxaadarooyin badan aan imaan doonaan waxaan loogu talagalay in hal qaada lagu qaado dadka uu shucuurtooda xoogaa la raro بالعصب إني تمذا إن للدرنسيو أنت الصيء هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يصح لي إلا أن أقول مهنئا نحن فرحين مستبشرين بميلاد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولا يفوتني أن أخص بالشكر وأن أدعو له لمولانا السيد الجليل العالم العارف بالله مولانا الشيخ نور أو عمر أبسوغ على ما يبدوه من ثمراته وجهوده المباركة في هذه الجلسة وفي هذه الحضرة. وأتقدم أيضا بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان إلى جماعته التي يقودها جماعة الشيخ نور المباركة الدعوية التي كان لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تنظيم هذه المناسبة المباركة وإخراجها بهذه الصورة المشرقة المنيرة. waxaan iskugu tahaniyadaynaynaa ilaahay inuu caamkan oo na soo gaarsiiyay inaan mar kale aan u dabaaldegno dhalashadii rasuulkayna sallallahu alayhi wasallam taas oo runtii aan wax kala ahayn wa amma binicmati rabbika fahaddith oo aynu iskugu tahaniyadaynayno kana sheekaynayno nicmatul kubrada ahayd ee ilaahay caalamkan uu ku soo beeriyay xilligan oo kaleetood nabigayna ayaana khasisay calayhi salaatu wasalaam oo tacdiimin ku khasisay waqtul wilaadadiisii waxaad ogsoontihiin xadiiskii saxiixa imaamul muslim oo warinayay rasuulku wuxuu soomi jiray isniin kasta markii la soomay wuxuu yiri daaka yawmun wulitu fiih waa maalintii la igu dhalay oo waxyiga la igu soo dajiyay marka nicmadaas ka mahadcelin aan ka mahadcelinayo ayaan u soomahay rasuulku dhahay calayhi salaatu wasalaam sidaa darteeda ayaa ijtimaacaadkanu ay ka tarjumayaan nicmadaas inaan ilaahay uga mahadcelino subxaanahu wa tacaala aanna ku faraxno raxmadaas ilaahay noo soo hadiyay xagga rabbi ka timiday xilligii nicmo la helo in la weynayhaayana hadda rasuulkiyaaba noo bilaaba calayhi salaatu wasalaam waxaad ogsoontihiin isniin kasto waa weynayn oo weliba usbuuci oo asbuuciba mar oo weynayn jira rasuulka calayhi salaatu wasalaam. nabiga waa istaagay wuxuu yiri law a'rada Muusa fiikum latabactumuuhu wa taraktumuuni la dalaltum haddii muuse la keeno ood raacdaan anigana iga tagtaan waad dhunteen maxaa yeelay antum xaddii min alumam wa ana xaddukum min annabiyiin marka ilaahay nasiib wuxuu nooga dhigay rasuulkayna inaan ummadiisa naqno maantana cawadana faraxa meeshan ka dhacay xaqiiqatan wax la soo koobi karo maaha sidii mashaayikhda igu horeysay ee ugu duceysay ayaa cawada dembigayna loo dhaafayaa maxaa yeelay waxaan isugu nimiday waa maxabada nabiga kaliya bacdu saalixiina nabiga ku riyoodeen markaasay waxay yiraahdeen rasuulka ilaahayow qofkii mawliid sameeyo oo adiga maxabadaada ku kulma maxay helayaan markaasuu wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam man ahabbana ahbabna bih man ahabbana ahbabna bih. munaasabadan waxa ay qayb ka tahay munaasabado waaweyn oo ruuxaya daafaha dunida kuwaas oo lagu weyneenayo xabiibka ilaahay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa Allah yeelay iyadoo caashiqiintuna ay soo muujinayaan jacaylka Mustafa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa Allah yeelay.